ku soo dhawow Somali Magazine kala aragtiya duwanaanta madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo soo ifbaxday dabayaaqadii bishii December ee sanadka 2021 ayaa wado cusub waxay u furtay jihada doorashada iyo qorshaha amniga qaranka sida ay sheegayaan xeelleerayaasha iyo dadka u dhuunduleela arrimaha siyaasadda. waxay kadib markii cirku isku shareeray khilaafka labada xafiis waxaa dabarka laga furay doorashada muddada dheer u qabirneed qaar ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka. Jubbaland waxaa lagu doortay 6 kursi oo ka tirsan aqalka hoose. Puntland waxay ku dhawaaqday qabashada doorashada 10 kursi. Koonfur Galbeed waxay iclaamisay 11 kursi. Halka doorashada xubnaha matalaya deegaanada Somaliland ee ku sugan magaalada Muqdisho ay dhammaad ay ku dhowdahay. khilaafka madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ka hor madaxweyne Dani iyo Axmed Madoobe waxay si cadhigaha uga fureysteen baaqyada ra'iisul wasaaraha guddiga doorashada federaalka ee Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka oo ahaa inay dedejiyaan doorashada kuraasta golaha shacabka ee taala deegaanadooda. hase yeeshee si ay kaga fogaadaan canaan caalami ah iyo mid gudaha intaba waxay xilligii khilaafka ku soo aadiyeen doorashada kuraasta aqalka hoose si ay wadamada qaska ku haya siyaasadda Soomaaliya ugu muujiyaan inuu meel fiican maraya hanaanka uu ra'iisul wasaaraha garwadeenka uu ka yahay. qorshahaas wuxuu horseeday in dalka Mareykanka iyo inta badan wadamada reer Yurub garab istaagii u muujiyaan ra'iisul wasaare Roble cadaadisna la saaray madaxweyne Farmaajo. wakiilada caalamku waxaan si aan kaga bad lahayn ay u taageereen shirka golaha wada tashiga qaran ee ra'iisul wasaaraha uu iclaamiyay. hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa waqti dheer saynta uga fadhiya dhaqaaqa dawladda madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo muddo ay kula jireen dagaal siyaasadeed ay ku fashilinayeen qorshayaashiisa waxaana hadda ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. hogaamiyaasha Galmudug iyo Hirshabeelle oo qorshahooda u ahaa inay qaadacaan shirkaasi waxay u muuqdaan in saameyn deegaan ay ku qasabtay inay xaadiraan kulanka halka madaxweynaha Koonfur Galbeed oo hore u diiday ka qaybgalka shirkaasi uu iclaamiyay la filayo inuu soo gaaro magaalada Muqdisho maanta. xogo hordhaca waxay sheegayaan in wax ka bedel lagu sameyn doono heshiiska 17 Sebtembar 2020 gaar ahaan qodobkii labada degme ee loo asteeyay in maamul kasta doorashada uu qabto. qodobkaasi wuxuu ubac u ahaa khilaafka doorashada ee muddada soo aloosnaa. wax ka bedelkiisa wuxuu horseedi karayaa muran doorasho oo hor leh. madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wuxuu dhowaan amar ku bixiyay in wax ka bedel lagu sameyn kareenin doorashada heshiiskii 17 Sebtembar 2020. tallaabooyinkaasi oo dhan waxay muujinayaan in markaan hagida hanaanka doorashada ay gacanta ugu jirtay ra'iisul wasaare Roble maadaama uu qabsoomi waayay shirkii uu iclaamiyay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. madaxda maamuladan ay ka horwareegeen in la socodsiiyo doorashada kuraasta adduunkana uu taageero la garab taagan yahay. dhanka kale waxaa isbedel ku yimid muran muddo u dhaxeeya midowga Afrika iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya kaasi oo salka ku haya qorshaha kala guurka maadaama uu dhamaaday waqtigii AMISOM. dalalka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya oo ujeedkoodu uu yahay in Soomaaliya laga sii fogeeyo rajada xasiloonida si aysan u istaagin malaayiin dollar oo ay ku qaataan magaca howlgalka ayaa midowga Afrika wuxuu ku qasbayay in la kordhiyo mandateeka AMISOM ama waqtiga AMISOM ay sii joogayaan Soomaaliya halka dawladda federaalka ee Soomaaliya si cad ay u diiday in la siyaadiyo muddada shaqada iyada oo aanan la helin qorshe rasmi ah iyo shaqo aan mar dambe qabyo noqon doonin sidii hore u dhici jirtay. sidoo kale waxaa jiray qorshe ay dawladda federaalka ee Soomaaliya hor istaagtay kaasi oo ahaa in magaca howlgalka la bedelo lagana dhigo isku dhaf ay si isku mid ah uga qayb qaadan doonaan ciidamo hoostaga midowga Yurub iyo kuwa midowga Afrika. tallaabadaas iyana dawladda Soomaaliya waa ay diiday. warbixino hore u soo baxay ayaa ku eedeeyay midowga Afrika, AMISOM iyo dawladaha ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya inay fashiliyaan qorshaha National Security Architecture ee lagu saxiixay shirkii London. sidoo kalena muddo ay hortaagnaayeen qorshihii ujeedkiisa uu ahaa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee AMISOM ay kala wareegaan amniga guud ahaaneed ee dalka Soomaaliya. qorshahaas oo loogu magac daray Transition Security Plan. dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo midowga Afrika hadda waxay isku raaceen mabaadi'dii hagi lahayd ka qayb qaadashada kala guurka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo midowga Afrika 2022 sida uu dhawaan shaaca ka qaaday wasiirka gaashaandhigga Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac waana tallaabo muhiim u ah qorshaha amniga qaranka.